mudanayaal iyo marweyn waxbarashadu waa furaha horumarka waana iftiinka nolosha iyadoo taa laga duulay xukuumaddu waxa ay hirgelisay kulliyadda tababarka macallimiinta waxaan daraasadda ku eegnay markii aanu darisnay in maanta cusbitaallo badan oo caafimaad ku adeegan aynu leenahay waxbarashaduna ta dowladda iyo tagaarkaba iskuulladu fara badan yihiin laakiin loo baahan yahay la gaaray waqtigii tayada caafimaadka iyo tayada waxbaridda iyo waxyaalaha daruuriga sida cuntada oo kale dhammaantood tayadooda la hubin lahaa ayaynu gaadhay mar xarbeen marayna mar dugsiba lama hayno waxa lagu fadhiisanayay qasacado geed baa loo fadhiyay mar iyo iskuulaha la dhisay mar meel carruurta la gaarsiiyay mar caafimaad ba lama haynin mar wuxuuna la soo dajiyay laakiin waxaan u aragnaa in la gaaray waqtigii tayada aqoonta iyo caafimaadka iyo cuntada la sixir ha la gaaray la ilaalin lahaa saadaradeed waxaan furay kulliyadii macallimiinta 400 oo ugu horeeyna waa la qaatay waxa deeq waxbarasho loo diray 450 arday waxa bishii Febraayo sanadkan si rasmi ah u bilaabmay arday kasta oo dhigta dugsiga hoose dhexe in la gaarsiiyo buugaagtii waxbarashada ee sanadkii hore intii aanu qaybinay hore mooyee sanadkana waxa la qaybiyay 100,000 oo buug oo la gaarsiiyay dhammaan daafaha dalka iyo gobollada oo dhan waxaana ka faa'iideystay arday gaaraysa 153,000 iyo 770 waxa la shaqaaleysiiyay 400 oo macallin oo cusub oo la geeyay dugsiyada ku yaala gobollada fogfog waxa dhacda dugsiyada waxa loo dhisaa baahi badan baa jirta in magaalo walba loo dhiso dugsi magaalooyinkana way bateen oo meel walba magaalo laga sameeyay oo waxa la sameeyay magaalooyin isu jira 10 kiiloomitir ama kala yar marka magaalo walba soo degayba carruur baa joogta carruurtaasina iskuul baa baahatay dhaqaalaheedna kolba inta ma wada gaaro marka hay-ado ama qurba jooga ayaa dugsiga dhisa marka dugsiga la dhisa dawladda waxa ku waajibay in macallimiinta gaarsiiso taasoo ka xoog weyn xawliga iskuulada u koraya xawliga dhaqaalaheedna yahay hase yeeshee sanadkan waxaa mushaaharo loo qaaday 400 oo macallin oo si mutadawacnimo ah ama tabaruc ah wuxuu bari jiray ardayda waxaa la dhisay sanadkan 200 iyo hal fasal oo cusub oo lagu kordhiyay 102 dugsi oo ku kala yaala gobollada Awdal Togdheer Sanaag Sool iyo Saaxib